السلام عليكم كلانتي wanaagsan daawade mowduuceena wararka ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wajahayaa eedeymo culus oo waaweyn doorkii beesha caalamka la gaaray Ambassador James Swan xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya xilkana laga qaaday laakiin aan wali xilkii wareejin ayaa laf dhuun gashay ku madaxweyne Xasan Maxamuud waxaana looga yeeray xerada xalane ee Muqdisho Ambassador James Swan toddobaadkan 3 jeer ayuu qaaday tallaabooyin dib la isugu heshiisiinayo madaxda Soomaalida mar warqad furan ayuu u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku yiri ka hor inta aan la gaarin 15 May oo maalmo qura ay naga xigaan waa inaad la imaadaa heshiis marna wuxuu ka jawaabay dacwad ay gudbiyeen Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo madax uu ku jira farmaajo hadda waa markii saddexaad uu tallaabo qaadayo 30 maalmood gudahood isla markaana madaxweyne Xasan Maxamuud xeerada xalane kulan uu kula qaadanayo haddaba mas'uuliyiintan maxay ka wada hadleen wararka qaar waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Maxamuud aad ayaa loo canaantay waxaana loo jeediyay eedeymo waaweyn oo culculus waxaana lagu yiri madaxweyne ma suuragelaysa sida aad wax ku wado wax ka yar 20 maalmood ayaa ku haray mana jirto ilaa hadda wax heshiis lagu yahay mana aha wax loo dul qaadan karo si cad ay beesha caalamku u diiday madaxweyne Xasan Maxamuud iyo qorshaha uu ka damacsan yahay xukunkiisa hadda waxaan soo koobayaa nuxurka kulanka ka dhacay xerada xalane ee magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markiisii saddexaad ayuu toogasho ka badbaaday gudaha aqalka cad ee Mareykanka ay rasaas toos ka dhacday xilli casharaf uu u sameeyay wariyaasha iyo warbaahinta maxalliga ee gudaha Mareykanka iyo kuwa dibadda aqalka cad iyadoo oo lagu casheenay ayaa mar qura la maqlay rasaas waxaana taasi ay keentay in lagu kala cararo goobta waxaad arkaysaa Trump oo garbaha laga hayo oo si dhacay isagoo oo cabsi iyo khalqal weyn uu ka muuqdo muuqaalkan kooban ee gudaha aqalka cad bal ila arag waan ku soo gudbin doonaa muuqaalka dhameystiran ee madaxweyne Donald Trump rasaas ayaa ka dhacday gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo khatar weyn ayayna gashay nafta Trump mana aha markii ugu horeysay ee dhacdan oo kale ay dhacdo Trump markii saddexaad uu ka badbaadayo way goob oo isagoo joogo oo rasaas laga riday haddaba yaa loo soo qabtay warbixin gaar ah iyo macluumaad dheeri ayaan ku hayaa saaxiib soo dhaw hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka oo subscribe soo dhig muuqaalka like saar saaxiibadana u sii share garee qodobadaas ayaan diiradda saaraynaa nala sii joog waa mahadsan tahay saaxiib waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale xerada xalane looga yeeray isagoo si degdeg ah ku tagay isla markaana waxa uu yeeray safiirka dalka Mareykanka u jooga Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya safiirka midowga Yurub iyo xubno kale oo beesha caalamka ka tirsan fadhigooduna uu yahay xerada xalane ee magaalada Muqdisho xogta aan helayno waxay warinaysaa in si adag loo canaantay madaxweyne Xasan Maxamuud dhowr qodob ayaa la duldhigay oo la yiri madaxweyne qodobka ka iyo ka tabashadoodu way taagantaa waana inaad xal ula timaada ayaa si cad loo yiri oo madaxda beesha caalamku ay u sheegeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxay madaxdan si cad ugu sheegeen in xukunkiisu maalmo kooban ay ka harsan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas oo ay tahay haddana aysan jirin wax heshiis lagu yahay oo Soomaaliya xilligan markaas inay ka dhacaan ay suuragal tahay madaxweynuhu dabcan aad ayaa loo canaantay waxaana lagu canaantay tallaabooyinka uu qaadayo iyo hab maamulkiisa 15 May maalmo kooban baa ka haray haddana ma jiro heshiis siyaasadeed haday tahay doorasho haday tahay dastuur haday tahay heshiis kale oo siyaasadeed wax jiraahi oo xilligan Soomaaliya ka jira ma jiro taasina madaxda caalamku waxay sheegeen inaysan ahayn ama ay markaas aysan ahayn wax loo dul qaadan karo madaxweynuhu waxa la yiri heshiis siyaasadeed la imaw waxa kale oo loo sheegay koor 15 May madaxweynuhu hadii uu tallaabadaas qaadi waayo inuu la kulmi doono xayiraad dhaqaale mid socdaal iyo tallaabooyin kale oo qarsoon oo ay qaadayaan madaxda caalamka oo ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadii siyaasiyiinta mucaaradka uu lahaa hu ayu isaga markiisa la yiraahdo xalana gudaheedana canaan ayaa lagala duldhacay madaxweynaha haddoow qofka sida loola hadlayo ma aha qof shacab waa madaxweynihii dhamaa ee dalka Soomaaliya ee aan uga dambeeyay xukunka una dhiibanay talada madaxweynuhu wuxuu ku qanciyay raggan in uu haysto mandate sharciya isla markaana hadii dastuurku wax laga bedelay hay'adaha ku shaqada leh ee sharci dejinta ay ka bedeleen oo baarlamaanka iyo xildhibaanadu ay yihiin laakiin isaga wixii looga baahan yahay ka xasan ahaan uu diyaar leeyahay laakiin dastuurka aan la faragelin Xasan Sheekh sida uu ku adkaystay
sidoo kale dastuurka waxa uu dhigayaa wiil 5 sano waa 5 sano in xukunka jooga ayuu si cad u yiri iyadoo oo ay careysan yihiin James Iswan iyo safiirkii Mareykanka iyo xubnihii kale ee Xasan Islaha ku digta ayuu ka soo baxay xalana iyaguna way careysnaayeen sidii ayaana lagu kala tagay Amnesty International oo hay'ad u dooda xuquuqda aadamiga ayaa dhawaan waray soo saartay waxay dawladdu ugu baaqday in la sii daayo Sacdiye Bajaaj oo ah haweeney Muqdisho ku xiran oo loo xiray arrimo la xiriira hadal ay baraha bulshada iyo warbaahintaba ka sheegtay madaxweyne Xashi Maxamuud waxa lagu yiri caburintii ayaa dadka ku haysaa sidoo kale cagajugleyn iyo handadaad ayaad ugu dareysaa doorasho diid baa tahay dastuurkii ama dalkii firaaq dastuuriya baad gelinaysaa iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaa lagu soo oogay madaxweyne Xashi Maxamuud laakiin aadeymahaas intoodaba wuu iska weeciyay sida aan xogta ku helayna si kastaba ha ahaato madaxweyne Xashi Maxamuud hadda beesha caalamka cadaadis xoogan buu ka wajahayaa dhowr jeer oo horena wuu iska caabiyay oo hadaladooda si cad ayuu uga soo horjeestay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba maxaa isleedahay Xasan Sheekh ma yahay nin laga adkaan kara mase yahay nin markaasi yeeli doona mucaaradka warkooda ama u dhagan nuglaan doona aragtidaada qaybta hoose ee faalada noogu reeb waa mahadsan tahay gabagabadii ayaan ku dhownahay maxaa ka dhacay gudaha aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka maxaase madaxweyne Donald Trump uu la kulmay waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay isku daydil oo uu ka badbaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu markaasi inuu badqabo kadib markii nin hubeysan oo looga shakisan yahay inuu weerar damacsanaa uu rasaas markaasi ka furay agagaarka goobta ay ka socotay casho sharafeed wariyaasha aqalka cad ama White House markaasi loo qabanayay arintan ayaa ku qasabtay ciidamada ilaalada ee madaxda ee markaasi security-gooda qaabilsan ama secret service la yiraahdo oo amaanka madaxweynaha qaabilsan inay si degdeg ah goobta uga saaraan madaxweyne Donald Trump marwada koowaad ee madaxweynaha haweeneyda lagu magacaabo Melania Trump iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda oo halkaas joogay ayaa isla markiiba lala cararay xilli dhammaantood ay ka qayb galayeen mid ka mid ah munaasabadaha sanadlaha ah ee ugu caansan magaalada Washington Trump ayaa habeenkii Sabtida fadhiyay masraxa hotelka Washington Hilton la yiraahdo isagoo oo ay weheliyeen madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka ninka la yiraahdo markaasi JD Vance afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka iyo mas'uuliyiin kale oo ururka wariyaasha aqalka cad ay ka mid yihiin ayaa si lama filaan ah waxaa gudaha xafladooda loogu maqlay dhawaqa rasaas xoogan xilli martidu ay markaasi ku guda jireen inay ku cunteeyaan gudaha hoolka oo munaasabadba ay iska socotay oo aan la islahayn wax dhiba ayaa dhacaya madaxweynaha ayaa dib ka sheegay in marka hore uu markaasi u qaatay in saxan weyn uu dhulka u dhacay maadaama dhawaqa ula muuqday mid aad u fog rasaastu waxay ka dhacday gudaha hoolka ay ku jireen meel ka baxsan oo banaanka hotelka iridda laga soo gala ah ayaa rasaasta ka dhacday Trump wuxuu yiri waxaan moodayay saxan weyn oo dhulka ku dhacay dhawaqa rasaasta markii hore laakiin markii dambe waxaan yaqiinsaday inaan khatar ku jirna ayuu markaas sheegay wuxuu xusay in marwada koowaad si degdeg ah ay u dareentay khatarta isla markaana ay iyada u sheegtay wuxuu yiri anigoon aad u dareemin xaaladda moodaya saxan dhacay ayay marwada koowaad khatarta dareentay isla markiina way ii digtay buu yiri waxaan u maleynayaa inay markiiba ogaatay waxa dhacay ayuu yiri Trump waxa uu saxafiyiintu u sheegay isagoo ku sugan aqalka cad in markaasi xaaskiisu ay u sheegtay kani waa dhawaaq xun bay ugu tiri buu yiri oo ay ula jeedo rasaas waa dhacaysa khatar ayaanan ku jirnaa iyadoo ula jeedo dabcan Trump ayaa sheegay in ciidamada ilaalada ay si degdeg ah uga dajiyeen masraxa wuxuuna xaqiijiyay in ciidamadu ay qabteen shaqsigii looga shakiyay isla markaana hal askari oo ka tirsan ilaalada gaarka ah uu ka badbaaday xabad meel dhow lagaga dhuftay jaakadiisa xabada celis ilaalada Trump xitaa waxay wataan jaakadaha aysan xabadu karin isaga iska badaa warkiisa waxa masaafo aad u dhow lagaga toogtay qori aad u awood badan jaakaduna shaqadeedii ayay qabatay laakiin dhaawiciisu ma aha mid culus naftii huraha ayuu yiri ninka askariga ah ee Trump rasaas isaga dhigay sanaha ayaa magaciisa lagu sheegay Cole Allen oo 31 jir ah kana soo jeeda
Torrance oo ka tirsan California sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan hay'adaha amniga oo xog ogaal u ah baaritaanka arrintan si hor dhacayeen u sheegeen ninkan ka soo jeedo gobolka California ee dalka markaasi Mareykanka. waxa kale oo xusid mudan booliiska in ay sheegeen in Allen ninka lagu magacaabo uu marti ku ahaa hotelka Washington Hilton oo uu hore u deganaa halkaas oo munaasabada lagu qabtay oo isagu aageeda ama eeriyadeeda deganaa isla markaana uu watay qori buskoolad iyo mindiyo. mas'uuliyiinta ma aysan shaacin sabab suuragal ah mana aysan sheegin in uu lahaa bartilmaameed gaar ah. dadaal badan oo markaas u galay ninka madaxweyne Donald Trump inuu xafladda sii joogo saraakiishiisa ammaanka ayaa ka diiday oo waxa loo sheegay inaysan suuragal ahayn inuu halkaas ku sii sugnaado. dad badan waxay ahayd baa la yiri in munaafiqaasi adduunka oo dhan dhunta u galay in markaasi waxay ahayd baa la yiri in la toogto oo uu geeriyoodo halka ku baxtay. dadka qaarna waxay yiraahdeen Mareykankii caasimadiisiiba hadii sidan iyo aqalkii cadda dhexdiisa warsaas laga ridayo dalka Soomaaliya oo soo kabasho ku jira maxaa loola yaabayaa falalka ammaan darro ee ka dhaca ay dadka qaar yiraahdeen. adeehan maxaa kaaga baxay aragtidaada noo reeba maasan tahay saaxiib muuqaalka like saar sina share garee saaxiibadana la wadaag muuqaalkan ila daawo. madaxdii qaranka oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay sorry haddaan bartoolka isdhaafsiiyey guddoomiyihii aqalka sarna waa joogaa qaybaha kala duwan ee heerarka dawladda madaxda dhaqanka Soomaaliyeed ismadii iyo duubkii Soomaaliyeed sharafta badnaa qaybaha kala duwan ee bulshada inta ka soo qayb gashay munaasabadda inta aan xusay iyo inta aan xusinba qof walba waxaan ku salaamay mudnaantiisa iyo masarka uu ku fadhiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام marka hore waxaan halkaan ka hambalyeeynaa una ducaynaynaa ugaaska Soomaaliyeed ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi waxaan leenahay ugaas duubnimada iyo mas'uuliyadda weyn ee Soomaali u qaaday ee u hayso ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ama aad ummad oo dhan u hayso Allah kugu guuleeyo Allah kugu asturo Allah kugu sharfo waa kugu ducaynaynaa waana kugu hambalyeeynaa. aniga si gaar ah waxa ii saaran dad badan baan ka duwanahay ugaaska hawl gaar ah iga saaran iyo duubnimadiisa waxaan rabaa sidii la sheegay safar baan saaka ugu soo baxay inaan ka soo qayb galo munaasabadda duubista ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi. sidaas darteed waxaan rabaa madaxda ugu horeeyo duubka iyo ismada dhaqanka Soomaaliyeed meel ay ka yimaadeenba iyo siyaasiyiinta iyo marti sharafta soo sharfay soo aqbalay martiqaadka iyo casuumaadda ka soo qaybgalka duubista ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi inaan idin mahad celiyo iraada waa mahadsantihiin been oo timaadeenba. intaas kadib markii horena beesha sida gaarka ah ugaaska u soo gudbisay ugaasku ugaas Soomaaliyeed waa ugaas hadii sidaan sheegay sida gaarka ah leeyahay marka ugu dambaysa deegaankii iyo dowlad goboleedka aan ka imid boqor gaar iyo duub gaar u sii ah waxaan rabaa inaan markii horena beeshu door weyn bay Soomaali dhexdeeda ku lahayd duubistaan maantay iyo casuumaadan iyo marti sharafta dadka la soo sharfay halka la keenayna waxay sii muujisay runtii meeshay Soomaali uga jireen beeshaasi bay aad u sii muujisay. marka waxaan leeyahay beeshaasi gaar ah Soomaaliyeed aan markaan si gaar ah loo ogaado hadii la yiraahdo runtii hawl weyn baa idin taala
hawl weyn baan waaska u taalla maanta la duubay waxaan leenahay guud ahaan duubabka iyo ismada Soomaaliyeed markii dawladdii dhexe naga burburtay meeshii dad wax badan madax badan baa hadasho meeladan baa laga sheegay meeshii laga soo kabtay oo dawladnimadii Soomaaliya jamhuuriyadda saddexaad laga soo kabay waa wada ognahay waxay ahayd duubabka iyo ismada Soomaaliyeed baa siyaasiyiintu wax ma soo dhaqin badan maxaa yeelay isqabadkii iyo khilaafkii ayaga inta ugu badan uu ka imaanayay runtii meesha laga soo kabsaday waxay ahayd halkaas maantana dawlad dhiska iyo weli in hore loo socdaa xil gaar ah ayaa idinka saaran oo maanta uga faa'iideysanaya fursaddan maanta lagu duubayo ugaaskeena ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi waxaan leeyahay duubabka Soomaaliyeed ee sharfanow weli hawshiini waa halkeedii meeshii ka sii wada insha Allah taala si aan u soo wehna ugu istaagno anigu ma rabo inaan ilaahdo siyaasad ka hadlo meesha baashu waa ka reebantaa la yiri laakiin mar walba waxaan leenahay waa run siyaasaddu nolosha bulshada ka mid ah haddana waxaan leenahay madashaan looguma talagelin kaliya qof kasta oo ama madax siyaasadeed ama madax dhaqan ah ama culummo ah ama ganacsato ah ama qaybaha bulshada sida dumarka sharfanood iyo dhalinyaradeena iyo waxgalkeena ka mid ah waxaana saaran inaan horay sidaan ugu soco lahayn ka shaqeyno oo aanan wax wanaag aan ku darno maahan aanan wax dhib ah ku darin ka hor socodka iyo soo kabkabidda dawladnimada Soomaaliya meel fiican baan hadda joognaa wixii dib noo celinaya aan iska qabanno iska digno iskaga dib uga degno taasna waan dardaarmaya mar kale waxaan leeyahay ugaas Cabdirasaaq hawshaan maanta lagu idmaday oo aad duub Soomaaliyeed ku noqotay oo duubka Soomaaliyeed ku soo biirtay oo aad boqortooyo soo jeedin ka soo jeedo sideedii meeshii ka soo jirtay iyo meeshii baahideeda laga qabo hore u sii wad sidii la sheegana beesha sharafta badan waxaan leenahay horay u garab gala ugaaska annaguna si guud Soomaali iyo markii hadda xoogaa yarka ahay oo la sameeyay isteediyada iyo nidaamkan federaalka aan qaadanay isteedkiisiiba si gaar ah uga sharfan yahay si gaar ah looga taxgelinayo si gaar ah duubkooda ugu yahay Allah idin sharfo waa mahadsantihiin mar kale waxaan leenahay guul iyo barwaaqo iyo horu socod iyo midnimo iyo wadajir Soomaali u rajaynaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.